بسم الله الحمد لله waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogto caalamka waxa aan rabaa in aan shirkan jaraa'id idinkula wadaago dareenkayga ku wajahan xaaladda guud ee dalku marayo iyo guud ahaan geedi socodka doorashooyinka dalka hadda ka socda lana rajaynayo in bilaha soo socdo haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali ka dhigo in la soo afjaro xaaladda guud ee dalka sida aad la socotaan dalkeena waxaa dib uga soo cusboonaaday cudurka coronavirus kaas oo laba kacleyntiisa laga dareemayo qaybo badan oo kamid ah dalka waxaan halkan uga mahad celinayaa wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo muujisay dadaal dheeraad ah oo la xiriira sidii loo xakameyn lahaa loogana hortagi lahaa faafidda cudurkaas waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed in ay si wada jir ah uga shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa cudurkaas iyada oo la qaadayo dhammaan tallaabooyinka keeni kara in cudurkaas uu dalka ku faafin isla markaana la qaado tallaabooyinka ay ku taliyeen saraakiisha caafimaadka waxaan sidoo kale halkan hambaliyo iyo bogaadin uga soo jeedinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug oo guulo waaweyn ka soo hooyay howlgallo ka dhan ah kooxaha nabadiidka saraakiisha iyo madaxda hogaaminaysa howlgalladaas waxa ay ku guuleysteen inay ururka argagixisada al-shabaab ka saaraan deegaano ka tirsan gobolka Mudug iyo Galgaduud deegaanada ay ku guuleysteen inay ka saaraan waxaa ka mid ah Bacadweyn Xinlabi Camaara Sirgo Qodqod Shabeelow iyo Baycad waxay qarka u saaran yihiin inay xoreeyaan magaalada Xaradheere degmo qadiimi ah in muddana ay kooxdaas haysatay tallaabada ay qaadeen ciidanka qalabka sida ma aha kaliya tan ay ka qaadeen gobolka ama dowlad goboleedka Galmudug laakiin dagaalada ay kula jiraan kooxaha nabadiidka ay ka wadaan gobolada deegaanada Shabeellooyinka iyo guud ahaan dalka waxay dardar gelinaysaa dadaalada la doonayo in dalka looga xoreeyo kooxaha nabadiidka ah intii ku shahiiday howlgalladaas waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryayaa naxariistiisii janno iyo jannatul firdawsa inta dhaawacana inuu Ilaahay u boogadhayo arrimaha doorashooyinka waxaan bogaadinayaa dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dalka baarlamaanka dowlad goboleedyada xukuumadda xilgaarsiinta ah ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble sida ay ugu dadaaleen in dalka ka qabtaan doorashada aqalka sare waxaan rajaynayaa in si degdeg ah loo dhameystiro xubnaha ka dhiman doorashada aqalka sare waxaan sidoo kale dhiirigelinayaa in dalka ay ka dhacdo doorasho kasta oo ay jiri doonaan qaladaad iyo tabashooyin dhanka xulashada habraaca habmaamuuska doorashada haddana waxaa muhiim ah inay doorashada ku dhacdo xilligii loogu talagalay si dalka uga baxo qalalaasaha siyaasadeed dibna loogu celiyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ku qabaan dowladnimadooda iyo dowladoodaba waxaa lama huraan ah in la xuso in dhammaan dowladihii dalka isaga dambeeyay ay ku soo fashilmeen inay dalka uu ka baxo xaaladda ku meel gaarnimada amba afka qalaad lagu yiraahdo transition amba waxa la yiraahdo permanent transition taasoo sabab u ahayd in 15 sano ugu dambeeyay aanay shacabka Soomaaliyeed helin dowlad kafaalo qaada amnigooda iyo adeega asaasiga ah ee qof walba oo Soomaaliya ah xaq ugu leeyahay dowladdiisa tala soo jeedin haddaba annaga oo ka turjumayna xaaladda qatarta ah uu dalkeenu ku jiro xilligan kala guurka ah waxaan soo jeedinaynaa qodobada hoos ku qoran dhammaan siyaasiyiinta kala duwan ee uu hanka iyo hamiga hogaamineed ku jiro waxaan kula talinaynaa inay danta guud ka hormariyaan danta gaarka ah
una turaan dalkooda iyo dadkooda in la xaqiijiyo in doorashooyinka ku dhacaan xilligii loogu talagalay loo iclaamiyey caqabadaha keeni karaa in doorashooyinku dib u dhacaanna si wada jir ah looga wada tashado xal wada jir ahna looga gaaro waxaan ka codsanaynaa madaxda dowlad goboleedyada iyo xukuumadda xilgaarsiinta inay fududeeyaan doorashada golaha shacabka si loo ilaaliyo xasiloonida iyo guud ahaan deganaanshaha dalka waxaa hubaal ah haddii la helo siyaasad degan in la heli doono doorasho degan oo natiijadeedu lagu wada qanacsan yahay isqabqabsiga siyaasadeed ee dalka ka jira waxa uu targeliyey amniga iyo geedi socodka arrimaha doorashooyinka dalka sidaas daraaddeed waxaan ku baaqaynaa in ciidamada ammaanka ay ka fogaadaan ku milanka siyaasadda dalka sida keliya ee looga bixi karo xaaladda adag ee uu dalkeena ku jiro waa in si niyad sami ah isku kalsooni ah wadaniyad ku jirto u wada hadlaan dhammaan saamilayda siyaasadda si loo dardalgeliyo loona turxaan bixiyo geedi socodka doorashooyinka dalka waxaan baaq u dirayaa ganacsatada ururada bulshada rayidka ah odayaasha dhaqanka ah haweenka dhammaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inay qayb ka noqdaan qaabkii doorasho la wada ogol yahay ee dalkeena uga dhici lahayd madaxda dowladda federaalka ee waqtigeedu dhamaaday waxaan kula talinaynaa inay qaataan go'aan geesinimo leh oo ay u tanaasulaan dalka iyo dadka Soomaaliya waxay halkan ku soo gaartay tanaasulaad ay sameeyeen madaxdii isaga dambeysay hoggaanka dalka shacabka Soomaaliyeedna way aqbaleen wayna uga abaalhayaan tallaabada ay qaadayeen hoggaamadii hore ee dalka soo maray gabagabo ugu dambeyntii dalka Soomaaliya waxa uu soo maray xaalado kala duwan shacabka Soomaaliyeed way ay daaleen waxa ayna ka daaleen dagaal isqabqabsi siyaasadeed ee ka dhaxeeya siyaasiyiinta Soomaalida oo inteeda badan ku dhisan dana gaar ah iyo dana shakhsiyadeed iyo xaaladda ku meel gaarnimada ah oo nagu raagtay 30 sano ayaan raadinayna dowladnimo walina dadku raadintii bay ku jiraan shacabka Soomaaliyeedna waxay muujiyeen dulqaad ay u dulqaadanayeen hoggaanidii dalka isaga dambeeyay dalkeena annaga ayaa iska leh dhibaatooyinka ka jirana waxa ka saari kara waa annaga oo kali ah saaxiibada Soomaaliya ee Soomaaliya taageera wayna caawin karaan laakiin mas'uuliyadda dib u yeegleelidda dowladnimada Soomaaliya waa mid ka imaan karta oo kali ah annaga oo Soomaali ah cid keeni karta deganaansho ma jirto haddaanan annaga isku tanaasulin annaga aan isku dulqaadanin annaga aanan wada tashanin ma jiro dad shisheeye ah ay nabad ka dhaliyeen nabadda annaga nagala rabaa annagayna mas'uuliyadana saaran tahay waxaan rajaynayaa in ay noqoto doorashada dhawaan la qaban doono qaybteedii horena hadda ay socoto tii ugu dambeysay oo doorasho dadban ah ee dalkeena ka dhacdo waxaan rajaynayaa in 4 sano soo socoto in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah si loo taabageliyo dowlad la wada leeyahay ay hoggaankeeda soo doorteen shacabka Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh